بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد درس كان maanta نخرinayo إن شاء الله تعالى wuxuu ku saabsiisan yahay waxa loo yaqaano المراهق فن التعامل مع المراهقين. مراهق af carabiga eraygu waa raahaqa alfata ay nahaza albuluuqa bay yidhaahdaan. muraahiqa halkan waxaynu uga jeednaa waxay reer galbeedku yidhaahdaan adolescence waa kelmad laatiin ka timi adolescere oo ah to grow up. adolescenceku markaa waa waxaan mararka qaarkoodna teenagerka la yidhaahdo. halkan markaynu kaga warramayno da'datan waa wakhti u dhaxeeya sida ay culamaa'i tarbiya ama culamaa'i nafs u xadidaan. waxay yidhaahdaan waa 12 jir ilaa iyo 18 jir. waayadii hore waayada qaarkood waxay odhan jireen waa 12 jir ilaa iyo 21 jir. laakiin lixdanaadkii wixii ka dambeeyey bay duwalkan industrialkii hoos u soo dhigteen oo ay ka dhigteen 12 jir ilaa 18 jir meelahaas. si kale haddaanu idhaahdo waxay idhahdeen waa da'da u dhaxaysa caruurnimada iyo qofweynimada. waa da uu qofku caruurnimo ka baxay, childhoodkii wuu dhaafay, adulthoodna ma noqonin bay idhahdaan. waxay ku sheegaan boyhood ama af ingiriisigii hore girlhood. waxaasoo huudhuudi waa qof aan gaadhin bay leeyihiin da'dii yaraanta lagu sheegi jiray uu ka baxay. qof majuur oo isku filan ama da'da qaangaadhka loo yaqaano rasmiga. qaangaadhku maaha kii biologicalka waxay u jeedaan qaangaadhka qaanuuniga ah ee uu qofku acmaashiisa iyo wixiisao dhan mas-uul ka noqonayo ee loo ogolaanayo waxyaabo badan qaanuunada waddanka ka degan ay u ogolaanayaan ma gaadhin. idan waa da qaangaadhnimada jidhkii waa ka mid oo waxay yidhaahdaan waayadan dambe ee barwaaqadu ku badatay dunida reer galbeedka raggu bay yidhaahaan 12 jir ilaa 14 jir inta udhaxaysa ayuu qaangaadhaa ama buluuq noqdaa. maraykanka oo kale waxay yidhahdeen averageka isku celcelinta waa 12.5 years ayuu ku qaangaadhaa. dumarka qaangaadhkooduna waabu ka sii hooseeyaabay tilmaamayaan oo dumarka qaangaadhkooda waxay ku sheegayaan nimankaasi wax tilmaama inuu yahay da u dhaxaysa 10 ilaa 12 baabay gaadhsiiyaan. kaasi waa qaangaadhka jidheed ee biologicalka ah ee uu qofku yeesho ninku waxyaabihii ninnimada lagu yaqaanay. ay ka mid tahay codkoo weynaada, ay ka mid tahay kurxintan kaga taalla hunguriga ragga inta badan oo soo dheeraata ama soo baxda, ay ka mid tahay dareenka ninnimo oo ku soo kordha. dumarkana arrimaha cagsigooda miskahoo soo godma, xaydkoo ay hesho, naasahoo soo dhaca iyo wixii la mid ah. yacni waa astaamaha muujiya qaangaadhnimada biologicalka ah. physiologically hadduu sidaa yahay, psychologicalina wuu koraa bay yidhaahdeenoo koritaan degdega ku yimaada oo mas-uuliyaad inuu qaado, bulshada inuu dhex galo, qofnimadiisii inuu helo, waxyaabahaas. intaas waxaan ku soo koobayaa tacriifka aan uga jeedo da'dan aan rabo inaan ka warramaa da'da ay tay. waayo af soomaaliga markii la tarjumayo waxaa la yidhi da'yarta, laakiin terminologyga da'yarta ahi dee waaba laga yaabaa carruurtana inaynu da'yar iskaga sheegno. anuu markaa iguma jiro waxaan ka warramayaa 12 jir wixii ka yaray kuma jiraan. waa qof 12 dhaafay ku sii socda qaangaadhnimo ama qaangaadhay ilaa iyo intuu ka gaadhayo 18. da'daa dunida innaga dhib baa inaga haysataa oo inta yaryar iyo malcaamadaha aynu ku haynaa, qur-aanka aynu dhignaa, halkaasaynu ku wadnaa.
laakiin mar allaaliya markay da'daa soo gaadhaan waxaad mooddaa inay inaga koraan oo bulshaday la nooliyeen la qabsadaan oo mujtamac innaga inaga aragti gadisan ama inaga dhaqan gadisan ama inaga akhlaaq gadisan noqdaan oo dadka inta badani waxay idhaahdaan war dhallinyaradii lama haye maxaynu ku samaynaa qur-aankiina ka weynaade oo ma dhigtaan ilaan innagaa caade waxaynu ka dhigannay qofka weyne inaanu qur-aan ka dhigane isna wuxuu rabaa inuu weynaado dee ma rabo inuu kuwii qur-aanka ku hadho innagaa caade waxay noo tahay qof weyne inaanu qur-aan dhigan marka ninkani carruurnimo dhaafo ma ogola carruurta dhex fadhi oo adiga qur-aanka lagu akhriyo wuu iska biday meel kaloo da'weyna maynan geynin oo qaanuunkiiyo waxaanaaba diidan fatradaas iyo sida loola dhaqmo ayaan rabaa inaan wax ka tilmaamo fatradaasi innagoo qura mushkiladun uguma aha dunidoo dhan bay maanta mushkilad ka taagan tahay waayo dunida waxaa ku faafay manaahijta tacliimiga ee reer galbeedku leeyihin ama qaabka reer galbeedku ay ilmaha u koriyaan ama qaabka waxbarashada loo siiyo ayaa dunida noqotay mostly طريقة عالمية ما دام ينقدين وضنده هجية إن حضارة ما دقايا نقالها هي السياسة الدنيا ده ما أنت يجا هجامية ما دام هجامية نوحي الراديين نلاش الدنيا ده سيدا وكانش ثقافة دودي بفافتي كلجر كودي بفافي واجه هو روح الجيا بيشرق قرين وكلجر كاسكو فافا عن طريق محي عن طريق التعليم انت سكول كالجلياون انه يبرطه لكن يمكن وحويان عن طريق التي في والسينما وكذا وكذا ده فضائيات عالميه اسكتشرو تولده وحناد غيابي صوماليا انا كتغيو ايتوبيا باديه ايتوبيا سوماليدو دكتو صومالي قلبنا عيدي بدغنين ميل عدلا وابقولو كدستay baanu imi oo inta ay dhish saareen ودقالكي كوسوفو مركو سعونيي كريينا مالنتي اللي قبسانيي باي دادكو داونيي وماشي قال لغو راعي جري اذن هدي هالكا لغا داونيو ان دشكا لغا داونيي ما هذا عالم كلنا ومنس يعني ثقافة دودي وفافتي ودوني الراديسي هفافتي متى ثقافة كوي هيستي كبر واقوبين مثلا حسايات كوما ندسينيه waddanka maraykanka waxay ku tilmaamaan 25 milyan oo muraahiq baa degan bay yiraahdeen 25 milyan oo muraahiq bay yiraahdeen 2 milyan oo kamida baa sanadkii la xidhaa 2 milyan oo kamida baa booliisku qabtaa xabsiyada juvenile ku ay leeyihiin de waa tirabeeleen waa xabsiyo gaar ah oo daadaasi lagu xidho waxay ku tilmaamaan 6,000 oo muraahiq ayaa isdaldala suicide 6,000 oo muraahiq baa isagu isdaldala waxay ku tilmaamaan 500,000 baa isku daya inuu isdaldalo 6,000 waa intay u suurtowday laakiin attempt-ka waxa sameeya isku dayga 500,000 muraahiq baa isku daya inuu nafta iska gooyo waxay yidhaahdaan 700 oo kun baa iskuullada ka baxsada dropout ka noqdo iskuulka ka yaaca waxay ku sheegaan 4 milyan oo muraahiq baa maarwaanada caba oo tijaabiya idan waa mushkilad dadka haysata waa mushkila caalamiya waxaan aad u xasuustaa anigoo afka norwejiga ka barta jaamacad norway ku taalla oslo university ayaa nin professor wax dhigayay baa dad waaweyn baanu ahayn dadka wax dhiganayay ayaa waxay weydiiyeen family muu lahay ninka professorkii waxay yidhahdeen maxaad u guursan weyday iyagoo niman kale la kaftamaya dabeetana wuxuu yidhi miyaydaan arag kawska ka jira buu yidhi dugsiyada dhexe ma problem baan soo kordhiyaa buu yidhi yani wuxuu arkay guurka iyo dhash iyo wixiiba inay tahay mushkiladii mujtamacoo la siyaadinayo miyaad arag buu leeyahay kawska ka taagan bulshada dhexdeeda ma waxaad